nin maalqabeena xilli uu qadadii isagii ubadkiisu ay u fadhiisteen ayaa nin maskiin oo saa'ila ayaa irida albaabka u garaaco yiri ninkii ilaahay wax siiyay oo maaragtane walanakana wax noo soo dhiiba odagii baa markaa hadalka maqlay inamadiisii buu kuri ninka maskiinka irida taagan u yeedho soo galiya waa la soo galiyo waa nin rafaad iyo mashaqo ay ka muuqato markaas uu maxaa tiriyo waxaan lahaa buu ereygan oo ku sadaqadeystaayo ninkii alla wax siiyo waxa alla ku siiyay wax naga sii markaa uu halka fadhiiso wixii aqalka cunto taalo dhan loo keenay baa leeyahay baastadii baa loo keenay waxbuu ka cunay bariiskii waxbuu ka cunay maraqii waxbuu ka cabay hilibkii waxbuu ka cunay waa nin iska baahno darbi jiif aha oo bariis iyo hilib la siiyay ka warrama labada buu si fiican uga dhididay markuu ha ka cadid yiri odayga ku yiri bal joog halka ay fadhiiso aba anigana cunadayda ii keenay buu markaas loo keenay bariis yar oo cad iyo caano yar oo dhanba odayga loo keenay wuxuu yiri anigu waxaan ahay ninka aqalka aad arkayso iyo waxa hanti dhex taala ee hantiilaheed maqashay baan ahay buu laakiin anigu xanuuno badan baan leeyahay oo dhakhtarkayga igu yiri macaan baad leedahay wax macaan ha u dhawaan cholesterol baad leedahay wax dufan ha u dhawaan dhiikar baad leedahay wax dhanaan ha u dhawaan haddaad doon inaad sii noolaato caafimaad ku sii noolaatana waxa la igula taliyay bariiska yara cad iyo caanaha dhanaan ka cab la igula taliyay adigina albaabka soo taagto waxa tiri ayaa alla wax siiyay wixii aqalka cunto lagu kariyay midii la soo dhigay waxbaad ka cunto waad cuntay labadeena keeba marka ilaahay wax siiyay buu maadigaagan caafimaadka haye wax walba cuni karaya nicmadii runta haysta mise anigaygan maaragtaan cuntada aan doono aanan cuni kareynin ee dhakhtarku igula taliyo bariiska cad iyo caanaha dhanaan ka cun labadeena keeba ilaahay wax siiyay xaqiiqatan waxa soo baxday labada ninba kana waxba la siiyay kana waxba la siiyay sida darteed dadka adduunyada jooga ninba ninbu tuhmaya mooyaane nin nolosha adduunyada u dhameystiran tahay ma jiro marka daartan adduunyadu sida khatiibka baad ka maqleyseen waa daarul ikhtibaar weeyaan wala nagu ikhtibaaraya mas'uuliyadda ugu weyn ee ilaahay qofka muslimka uu saarayna waa mas'uuliyadda diin waati nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xajjat alwadaa asxaabtiisa markuu meedaanka carafa uu kula hadlayay khudbad kasto nabigu maalinka uu jeediyo waxa uu ku soo gabagabeeyay lahaa غدا سائلون عني فماذا أنتم قائلون بريتو لو لكي ويدين دوناي محد أورن دونتان مركز الصحابة لها يا نشهد أنك قد بلغت الرسالة وحن مركنا هاي رسالة الرب كوسو دي بين النسو غارسيسي أمانة دينا إنا غودتي دينتا إلى هنا هلغن كيغي دبتها إنا دو هلغنتي إلى مارك أمدنا أدو نصليحيسي لأن مركب النبي فرتا سو نبي عرك أو تقولها اللهم فاشهد إله كم رغهو إله كم رغهو إله كم رغهو مركب النبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سو كلها كينا ما أنت شاهد كي إلى جوجي حاضر كو كينا مغن غارسيه النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنت سودكت آيات القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت دينتي نيدا ما يستريبها إلى حيري نعمت دينا ما أنت دوشينا كتام يلي دينت إسلام كان أنا إني دورتور علي نقال نقضيبها إلى حيري صحابته حلك واللغو وريجيي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بحلك كو وريجيي أصحاب رسول الله إن حلك الدين توي قادان وشرقا وغربا حلكي أي دين أي قارسيين أيام ما أنت إسلام كو جوغا بالليل مال اللي ماشي نص صحابي انتو رسالة حنبار ودين تقارسيي حلكي دين إسلام كو مسؤول دافين بالليل marka mas'uuliyadda koobaad ee banka qiyaamada la weydiin doono walaalayaal waa diinta ayaa la weydiin diintuna waa maxay sida ruuxda bini aadanka jirkiisa uu ugu dhaqaaqayo ugu socdo ayaa nolosha dhan ee adduunyadu ay ku taagan tahay diinta islaamka oo waxa maanta adduunyo gaal cad iyo gaal madow aan kula noolahayn kula nool sababtooda inaku kuma taagnine bal gaaladu iyaka sababteena ku taagan lawla bahaa'im ar-rut'a wa shabab as-sujud wa shuyukh ar-ruk'a lam yumtaru haddaynan jirin baa la yiri dhalinyarada ma aragtaan dhalinyarnimadoodii iyo shaytaanka iyo shahawaadkii ka soo reebay naftooda ee ilaahay u sujuudaysa odayada da'da waaweyn ee rukuucdu ay dhibayso ee haddana ilaahay u rukuucaya iyo bahaayimka dambiba aan galabsan ee dhulka daaqaya saddexda haddaynan adduunyada jirin baa la yiri adduunka roobo kuma da'eenba
dad badan oo muslimiina aaminsan in gaalada lagu joogo gaalada lagu nool yahay war gaalku sababtaydu ku nool yahay aniga war gaalku adiga sababtaadu ku nool yahay war muslimka ashahaadanaya geedka hoos jiifay ashahaadanaya ee ilaahay rumaysan nabi maxamed rumaysan calayhi salaatu wasalaam muslimka sababtiisa gaaladu ku soo socdaan ee ku cunayaan binas alhadiis buu nabigu ku yiri saacada qiyaamadu ma dhacaysa buu nabigu imani mayso inta arlada dusheeda laga leeyahay la ilaaha illa allah ama arlada korkeeda inta uu joogo qof ilaahay rumaysan oo ilaahay aaminsan saacada qiyaamadu dhici maysa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinta qof muslim adduunka laga waayo waxaad ogaataa adduunka ilaahay uu qaato uu duubay ogaada markaas oo nabigu sallallahu alayhi wasallam wakiilaha dabayl baa ka iman doonta min qibal ash-sham dabayl qabow oo udgoon mid kasta oo adduunyada ku nool muslima ama mithqala dharra in la ego iimaan qalbigiisa ay ku jirto dabayshaasi sanka intay ka gasho ay ruuxda ka qaban doontaa buu nabigu yiri midkiin haduu yiraahdo dabaysha ka orod oo bur caloosheeda ka galna dabaysha intay ka daba tagto ay ruuxda ka soo qaban doontaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka dadka muuminiinta adduunka nafta laga wada qabto ee dabayshaasi ay ruuxda ka wada qabato dadka dad ugu shar badan buu nabigu ayaa arlada dusheeda ku soo hari doona kuwaas oo wanaagna aanan isfaraynin munkarna aanan iska reebaynin ibliis baa sheekh iskaga soo dhigi doona waxa uu oran doona aniga maadi aqbalaysaan oo maxaad amraysaa han ku aqbalne waxa uu oran doona asnaamta dib u caabuda kuwaas iyagoo asnaamta caabudaya oo qoryihii iyo shirkigii bartamaha ugu jira ay saacada qiyaamadu ku dhici doontaa buu rasuulku yiri وصلي رسولكنا marka ruuxdan caalamku waa qofka muslimka islaam ilaaha muslim inaga dhigay baan ugu mahadinaynaa saadarteed mas'uuliyadda koobaad ee nasaaran waa diinta waxa u dana ayaa nolosheena dadkeena iyo dalkeena u dana ogaada waa meesha Soomaalidu ay tiraahdo waxa ummusha u dana ba ilmaha u dana odaga islaamtu markay u dhasho ilmaha cunto u soo dhigi maayo aqalkee islaamta u nafaqayn timir buu u keenay hilib yar maartan oodkac buu u keenay subag buu u keenay neef yar buu u soo qali waayo nafaqada ilmuhu hooyadii buu ka qaadanayaa halkay Soomaalidu ay leedahay war waxa ummusha u dana ba ilmahana u dana war waxa diinteena u dana islaamka ayaa dadkeena iyo dalkeena u dana walaalayaal marka diinta xil baa inaga wada saaran dhalinyarada xil baa ka saaran odayada xil baa ka saaran maalqabeennada xil baa ka saaran caamada xil baa ka saaran culimada xil baa ka saaran madaxda xil baa ka saaran oo diintu waa maxay waa waxa adduunyadu ku taagan tahay waa meesha culimadu ay yiraahdaan ummadda hadii saddex khasladood laga arkay bay leeyihiin ummadaasi way jiri nabadna way ku waari horumarna way hiigsan barwaaqana way heli saddexdaas waa maxay waa cadaalad waa sidq rusheegnimo iyo amaana saddexda ummad hadii laga helo mas'uuliintooda laga helo maalqabeennadooda laga helo caamadooda laga helo culimadooda laga helo qof kasto muslim haduu saddexda khaslo uu ku sifoobo al-adl inuu cadaalad yeesho qofku cadaalad sameeyo iyo inuu amaana uu yeesho qofku uu noqdo amaana xaafide iyo inuu noqdo qofku rusheege saddexda ummaduhu way ku jiraan baaqina way ku noqdaan wayna ku barakoobaan saddexda cagsigeega ana ummaduhu way ku baaba'aan oo way ku dumaan waa saddexdee waa dulmiga waa ضد العداله waa khiyaanada waa ضد الامانه waa kidibka waa beenta waa ضد الصدق weeyaan saddexdaan ummaduhu way ku baaba'aan dulmiga way ku baaba'aan khiyaanada way ku baaba'aan beenta way ku baaba'aan saddexda khasladoodna waa saddexda khasladood ummaduhu ay ku baaba'aan ay ku dabar go'aan saddexda hore soo sheegayna bay culimadu leeyihiin waa saddexda ummaduhu ay ku sii baaqi noqdaan ay ku jiraan waana diinteena inagu dhiirigelinaysa saddexdaas in qofka muslimku uu noqdo qof cadaalad sameeya oo yaad cadaalada u sameynaysa marka u horeysa ahibba linnaas ma tuhibbu li nafsika takun musliman bu nabigu alayhi salatu wasalaam waxa naftaada la jeceshahay ee khayra dadka la jeclo bu nabigu yiri islaamnimadaadu markaa bay dhab noqonayeen وخالق الناس بخلق حسن dadka muslimiinta oo kaliya dabeecad wanaagsan kula dhaqan laguma oranay waxa laga yiri dadka oo dhan dabeecad wanaagsan kula dhaqan oo dabeecada wanaagsan waa maxay waa meesha dadka gaalada ay dalkan inagula nool ee dalkan aan kula nool lahay waa meesha diinteena islaamka aan ku gaarsiin karno weeyaan akhlaaq wanaagsan qofka muslimka inuu yeesho marka diinta caamadeena culimadeena dhalinyaradeena xil baa inaga saarane xilkayga nin walba inta kaga soo aadan inuu ummadda u khidmeeya laga rabaa القرآن الكريم في بيتك بشارو 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 بشري هذه برشة القرآن كله قلي جري سفر
hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxaanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur-aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada kuwa